shaqada Xavi Alonso ee Real Madrid waxay ahayd mid halis ku jirtay toddobaadyo badan balse kadib markii uu lumiyay finalkiisii ugu horeeyay ee kooxda hogaamiyay taasoo ay Barcelona ka adkaatay ayaa ugu dambeyntii lagaga caydhiyay kooxda isla markiiba waxa lagu bedelay booskiisa saaxiibkiisii hore ay soo wada ciyaari jireen Alvaro Arbeloa warar kala duwan ayaa jira qaar waxay sheegeen in la ariyay qaar kalena waxay yiraahdeen go'aanku wuxuu ahaa mid labada dhinacba isla eegeen halka kuwa kalena ay leeyihiin isaga ayaa shaqada isaga tagay si kastaba ha ahaatee waxa uu baalay in Xavi Alonso uusan mar dambe sii ahaan doonin tababaraha Real Madrid iyadoo muddadiisu ay ku ekeyd kaliya 8 bilood haddaba waxaa jira dad badan oo aad ugu faraxsan bixitaankiisa laga bilaabo taageerayaasha ilaa ciyaartoydii sida dhow la shaqeeyay isaga muuqaalkan waxaan si gaar diiradda ugu saari doonaa ciyaartoyda kuwani waa 7 ciyaaryahan oo aad ugu farxaya bixitaanka Xavi Alonso ee Real Madrid Vinicius Junior kan ugu horeeya listigeena shakil aan waa Vini Jr oo wax iska cad in isaga iyo Xavi Alonso ay isku dhacaan mar waxaan aragnay sida Vini uga falceliyay markii laga saaray ciyaartii El Clasico ee ugu horeysay xil ciyaareedka taasoo ka dhacaysay Santiago Bernabeu wuxuu ku jiray ciyaartii noloshiisa fursad ayuu abuurayay dhamaystirayay gambisyada cabsi gelinayay qalbiyada daafacyada iyo taageerayaasha Barcelona isla markaana ka dhigay wax walba inay u shaqeeyaan Real Madrid laakiin Xavi Alonso ayaa go'aansaday inuu bedelo isagoo kaliya 17 daqiiqo ka harsantay ciyaarta iyadoo natiijadu wali mugdi ku jirto Vini ma uusan qarin karin yaabkiisa iyo sida uu uga cadhooday arrinta wixii ka dambeeyay dhacdadaas calaamado kale ayaa muujinaya in Vini uusan marnaba ahaan doonin ciyaaryahanka ugu muhiimsan Real Madrid taasina waxay keentay warar sheegaya inuu diiday xitaa saxiixa heshiiska cusub isla markaana uu xitaa ka fiirsanayay inuu ka tago kooxda sabab la xiriira tababarihiisa Vini aad ayuu jecel yahay Real Madrid waanan ognahay inuusan weligiis doonin inuu ka tago marka haddii tababar uu gaarsiiyo heer uu ka fiirsado ka tagista kooxdii noloshiisa waa wax cad inuusan jeclayn tababarahaas sidaa darteed Vini wuxuu noqon doonaa qofka ugu farxadda badan kadib bixitaankii tababara Xavi Alonso intaa waxaa dheer qaab ciyaareedkiisa ayaa hoos u dhacay xilliga Alonso balse hadda wuxuu rajaynayaa inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisa fiicnaa isagoo ka hoos ciyaaraya tababara Arbeloa Enrique ciyaaryahanka kale aad ugu farxi doona arintan waa Enrique Xavi Alonso gabiyaanba muusan isticmaalin isaga xataa fursad uu muusan siin inuu isku muujiyo naftiisa taasoo ku qasabtay Enrique inuu amaha ugu baxo kooxda Lyon bishii January si uu helo daqiiqadeero ciyaara ka hor koobka adduunka inuu dhaliyo gool kadib 42 daqiiqo oo uu ciyaaray kooxdu amahda kula joogay waxay muujisay inuusan isagu dhibka ahayn wuxuu u baahnaa kaliya fursad uu ku cadeeyo naftiisa tababaruhuna marnaba ma uusan siin fursadaas sababtoo ah si gaar ah uma jeclayn isaga inuu arko tababarahaas oo shaqada laga caydhiyay waxay si weyn farxad ugu abuuri kartaa wajiga Enrique wuxuu xagaaga ku soo laaban doonaa Real Madrid isagoo la rajo cusub oo ku qancin kara tababaraha cusub waxaana laga yaabaa inuu ka shaleeyo kaliya inuusan Alonso hor u bixin haddii kale uma baahdeen inuu ka tago kooxda Real Madrid bishii January waxaa jira Brazilian kale oo ku jira listigeenan kaasoo sidoo kale ku farxi doona bixitaanka Xavi Alonso mataqaana cidda uu yahay haddii aad taqaano noogu sheeg qaybta commentiga hoose intaad halkaas joogto haddii aadan weli subscribe garin kanaalka samee hadda oo subscribe gare si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiisaha badan ee aan soo gelino 3 Trent Alexander-Arnold aan ka hadalna Trent Alexander-Arnold waxa uu muuqataa inuusan Alonso ahayn tababaro uu jeclaa inkastoo dhaawacyo badan ay saameeyeen Trent Alexander-Arnold markuu taam ahaana ma uusan noqon ciyaaryahanka joogtada ee kooxdiisa Real Madrid iyadoo Alonso uu ka doorbidi jiray Carvajal ciyaaryahanka sida Trent oo kale wuxuu rumaysan yahay inuu safka hore ka geli karo koox kasta oo adduunka inuu kursiga keedka fadhiistaana ma ahan wuxuu ku farxayo Trent ugama uusan tagin kooxdii carruurnimadiisa Liverpool si uu keed ugu noqdo Real Madrid waxaanu la jeedaa ninkan waa ciyaaryahankii sheegay inuu doonay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or taasoo aan macquul ahayn haddii uusan si joogto u ciyaarin sidaa darteed wuxuu noqon doonaa mid aad u faraxsan bixitaanka tababare isaga aanu arag mid muhiima 4 Dani Ceballos
waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ku farxi doona bixitaanka tababara Xavi Alonso inkastoo uusan weligiis ahayn ciyaaryahan si joogto ah ugu bilowda safka hore haddana xilligii Alonso wuxuu noqday mid aad uga hooseeya sidii uu ahaa xilligii tababara Carlos Ancelotti uu joogay Real Madrid xitaa warar ayaa sheegaya in si khasab loogu diray kooxda inkastoo aysan jirin wax damaanad ah in tababaraha cusub uu si toos ah uga dhigi doono ciyaaryahan safka hore ku bilowda haddana Dani Ceballos wuxuu rajeynayaa inuu ku qanciyo tababara Alvaro Arbeloa inuu ka dhigo ugu yaraan ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda Real Madrid. Ferland Mendy midka xiga waa Ferland Mendy isaguna wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda aad uga farxi doona bixitaanka Xavi Alonso xilliga Alonso. Mendy si weyn ayuu hoos ugu dhacay kala sareynta kooxda dhowr sano ka hor wuxuu ahaa daafaca bidix ee koobaad Real Madrid ay ku dhaadato balse markuu yimaaday Alonso wuxuu noqday kan saddexaad taasina hubaal ma aysan ahayn wuxuu ku farxo dabcan dhaawacyadu wax badan kama aysan caawin isaga maadaama uu saagay qaybo badan oo xilli ciyaareedka ah laakiin xitaa markuu caafimaad qabo Alonso ma uusan siin jirin fursad ku filan. Mendy wuxuu taamaha 12 kulan intii uu joogay Alonso balse guud ahaan wuxuu ciyaaray kaliya 112 daqiiqo taasoo u dhigantay inuu ciyaaray hal kulan oo buuxa iyo 22 daqiiqo waana wax yar mana jirto sabab uu arintaas ugu farxi karo. dabcan hadda waxa jooga kooxda Creras taasina waxay ka dhigaysaa mid adag inuu mar kale noqdo daafaca bidix ee koobaad Real Madrid maadaama ciyaartoy kale hadda ay joogaan kooxda. haddana Mendy wuxuu rajeynayaa in tababaraha cusub ee Alvaro Arbeloa uu siin doono daqiiqado ka badan kuwii uu ka helay Xavi Alonso. Rodrigo xasuusaynaan hore u sheegnay inuu jiro Brazilian kale oo ku jira muuqaalkeena dabcan ma ahan qof kale ee waa Rodrigo inkastoo toddobaadii ugu dambeeyay ee xilligiisa uu helay daqiiqado badan haddana taasi kama tirtirayso dhibkii uu kala kulmay bilowgii Alonso. sacad uu muusan jeclin Rodrigo wuxuuna marar badan ka doorbidi jiray ciyaartoy kale sida Arda Güler, Mastantuano iyo Gonzalo Garcia inkastoo Rodrigo ka way aragnimo badnaa arintu waxay gaadhay heer ay taageerayaasha Real Madrid ay bilaabaan inay Rodrigo ku booriyaan inuu ka fikiro ka tagista kooxda si uu meel kale uga helo fursad iyo farxad ciyaareed kaliya markay Real Madrid wajahday dhibaato dhaawacaya iyadoo Mbappe iyo Mastantuano ay maqnaayeen ayuu Rodrigo helay daqiiqado macno leh. sidaa darteed waxaa la dareemay in haddii Alonso uu sii ahaan lahaa tababaraha kooxda Real Madrid Rodrigo mar kale lagu calin lahaa kursiga kaydka kadib markay ciyaartoydu dhammaan soo laabtaan. sababtaas awgeed Rodrigo hubaal wuxuu aad ugu faraxsan yahay bixitaanka Xavi Alonso hadda wuxuu rajeynayaa in tababaraha cusub ee Real Madrid Alvaro Arbeloa uu qiimeeyo tayadiisa isla markaana uu dib uga caliyay kaalintiisii muhiimka ahayd ee uu ka lahaa kooxda xilliga Carlos Ancelotti. Jude Bellingham ugu dambeyntii inkastoo ay dood ka dhalan karta midan waxaan aaminsanahay in Jude Bellingham uu sidoo kale wax yar ku farxi doono bixitaanka Xavi Alonso xilligii Carlos Ancelotti. Jude Bellingham wuxuu si weyn ugu raaxaysanayay ciyaarta kubadda cagta gaar ahaan dhinaca goolasha qaab ciyaareedka Talyaaniga ee tababara Carlos Ancelotti wuxuu ku soo dhaweeyay isaga goolka taasoo u suurtagelisay inuu gool dhaliyo isla markaana caawiyo. waxaa la dhihi karaa taas ayaa keentay inuu ka mid noqdo saddexda musharax ee ugu sareeya Ballon d'Or sanadda 2024 laakiin markuu Alonso tababara noqday Bellingham si kale ayuu adeegsaday waxaa loo bedelay ciyaaryahan shaqo adag ka qabta khadka dhexe halkii uu goolka uga dhawaan lahaa inkastoo awood u leeyahay doorkaas cadeeyay markii uu joogay kooxda Dortmund haddana waxaa la dareemayaa in isaga qudhiisu uu door bidayay inuu noqdo ciyaaryahan goolka u dhow halkaas oo uu si dhab u waxyeelayn kara daafacyada. ma jirta cadeyn cad oo muujinaysa inuu khilaaf shakhsi ah kala dhaxeeyo tababaraha balse fikradda tababaraha cusub oo laga yaabo in doorkiisa uu bedelo isla markaana uu riixay dhanka hore hubaal waxay Bellingham gelin doontaa farxad weyn. taasina waa sababta aan ugu malaynayno inuu wax yar ku farxi doono bixitaanka Xavi Alonso. si kastaba ha ahaatee hadda waa idinka waqtigiin saaxiibayaal waa kuma ciyaartoyga sida xoogaa ugu farxi doona kadib bixitaanka Xavi Alonso ma ahayd go'aan sax inuu baxo mise khalad ayay ahayd. sidee ayaad u aragtaa mustaqbalka tababaraha cusub ee Alvaro Arbeloa noogu reeb fikirkaaga qaybta commentiga hoose. waxaan soo gaadhnay dhammaadkii muuqaalkeena ha iloobin inaad kusoo birta kanaalka oo aad tidhaa subscribe intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah sidaas iyo maca salaama fi amaanillah.